kulanti waxaan daawadayaal halkaani waa NTN TV ku soo dhawaada wararkeena duurnimo qodobada ugu doorka roon ee aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Somaliland oo ka hadashay in ay Mareykanka siinayso saldhig military qaramada midoobay oo shaacisay dakhliga ay bil walba aruuriso al-shabaab Jubaland oo odayaal dhaqameed ku xirxirtay Dobley hay'adaha samafalka oo digniin ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee geeska Afrika wararkeena dibaddana waxa ugu doorka roon weerar lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali dalka tirsan NATO oo ku baaqay in la hakiyo cunaqabataynta la saaray Ruushka sababta qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo tamin doonaa intaan warkeena duhurnimo ku jirno ee daawasho wacan waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay tahay 2 bisha Juun sanadka 2022 warka maanta waxa idiin soo tabinaya anigoo Sakariya Cabdikariina daawadayaal markaana ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan go'aanka Mareykanka uu doonayo in 500 oo askari uu dib ugu soo celiyo Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah xagjiriinta al-shabaab ayaa astaan cad u ah taageerada uu hayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud marka laga soo tago in Mareykanku uu dib u soo celinayo ciidamadiisa Soomaaliya waxa uu u soo jeestay dhanka waqooyi ee Somaliland oo sheegay in ay ka go'day Soomaaliya 31 sano ka hor balse aan aqoonsi caalami ah helin bishii Maaj waxaana la ku marti qaaday safar waxtar badan oo aan ku tagnay Mareykanka ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Ciise Keyd waxa diiradda la saaray ayaa ahayd in si dhow looga wada shaqeeyo amniga iyo sirdoonka 2 bilood kadib Mareykanku uu ka jawaabay isagoo u soo diray Somaliland ninka ugu sareeya militariga Afrika ee taliyaha Africom General Stephen Master Keyd ayaa lagu soo dhaweyn kari waayay socdaalkii uu generaalku ku tagay dekedda Berbera oo ay ka mid ahayd inuu soo daawado dhabaha diyuuradaha madaarka oo dhirirkiisu yahay 4 kiiloomitir oo ay dhiseen midowgii Sofiyeetiga xilligii dagaaladii qabowga waxa Somaliland si weyn looga hadalhayay in Mareykanku uu qorsheynayo inuu saldhig military ka samaysto Berbera waxa kaliya ee aan hadda sheegi karno ayaa ah in booqashada Mareykanku ay noqon doonto mid soo noqnoqota ayuu yiri wax aanu filaynaa in gacan la ka siiyo tababarida ciidamada ammaanka iyo ilaalada xeebaha waxa jira sababo badan oo Mareykanku uu ku doonayo Somaliland waayo ismaamulkani waxa uu ku yaalaa meel istiraatiiji sare leh xeebtiisa oo ah 800 oo kiiloomitir 500 oo mayl waxa ay ku fidsan tahay mid kamid ah marinada ugu mashquulka badan adduunka dhanka kale Djibouti oo ah dal yar oo deris la ah waxa ku yaala saldhigyo military oo shisheeye oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Mareykanka daawadayaal halka aad weli nagala socotaan waa NTN TV sida laga soo xigtay xarunta daraasaadka istiraatiijiyadda Afrika tirada weerarada al-shabaab ayaa kor u dhaafay 1771 waxayna gaareen 2072 sanad kadib bixitaanka ciidamada Mareykanka taa oo ka dhigan koror dhan 17% waana qiimo weyn marka loo eego xaaladda uu dalku wajahayo bishii la soo dhaafay saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ilaa iyo 450 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada midowga Afrika ay ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay dileen ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi khubarada qaramada midoobay ayaa al-shabaab ku tilmaamay kooxda ugu awoodda badan ee al-qaacida xiriirka la leh waxayna ku qiyaaseen in ay leeyihiin ilaa iyo 12,000 oo dagaalyahan iyo awood ay ku ururin karto dakhli bishiiba gaaraya $10 milyan ama 8 milyan oo euro in ciidamada Mareykanku ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya waxay sameyn doontaa isbedel weyn ayay tiri Samira Keyd madaxa fulinta macahadka Hiraal oo ah hay'ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho isla markaana diiradda saarta arrimaha ammaanka dadka qaar ayaa shaki ka qaba soo laabashada ciidamada Mareykanka taas oo muujinaysa in dadka caadiga ah ay dhibanayaal u noqdeen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka dad rayid ah ayaa lagu dilay duqeynta Mareykanka ayay tiri Xaliime Axmed oo ah ardayad jaamacadeed oo aabaheed lagu qarxiyay ismidaamin al-shabaab ay bishii September 2021 fuliyeen
daawadayaal halka aad nagala socotaan weli waa NTN TV. ciidamada Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in ay tiro odayaal ah ku xireen xabsi ku yaala magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. odayaasha la xiray oo gaaraya ku dhawaad 10 oday ayaa lagu soo qabtay agagaarka deegaanka Diif oo ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa maleeshiyad beeleed. odayaasha la xiray oo gaaraya ku dhawaad 10 ayaa lagu soo qabtay agagaarka deegaanka Diif oo ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa maleeshiyad beeleed hubeysan. mid ka mid ah nabadoonnada xiran oo ay u suura gashay inuu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad adag, wuxuuna shaaciyay in aysan ogeyn waxa loo xiray. odayaal xiran oo nabadoonna ah ayaan nahay, waxaan u xirannahay, waxaan ognahay maaha, ayuu yiri mid ka mid ah nabadoonnadaasi. ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Jubbaland oo ku aadan xariga odayaasha, balse waxaa socda dadaallo ay wadaan waxgaradka deegaanka. maalmihii u dambeysay waxaa jiray xiisad xooggan oo u dhaxaysa maleeshiyad beeleed hubeysan, waxayna ka taagan tahay deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. hay-adaha samafalka ayaa ka digay tirada dadka ay soo food saarayso macluusha ka jirta geeska Afrika, iyadoo gaaraysa ilaa 20 milyan oo qof marka la gaadho dhamaadka bisha September ee sanadkan, haddii aan jawaab xooggan laga bixin abaaraha adag. digniintan ay soo saareen hay-adaha samafalka ayaa timid iyadoo markii afraad oo isxiga aysan gobolka ka di'in roobkii la filayay. gobolka geeska Afrika waxaa ka jira abaarihii ugu xumaa oo soo mara muddo 40 sano ah, taa oo sababtay in ay dhintaan in ka badan 7 milyan oo xoolo ah oo ku noolaa dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. Yuusuf Guure oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee degan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in xaaladaha abaaraha awgeed ku waayay ilaa 294 neef oo adhi ah. daawadayaal haddana ku soo dhawaada wararkeena dibadda. howlgalka qaramada midoobay ee Mali MINUSMA ayaa sheegay in mid ka mid ah nabad ilaalintooda lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Kidal ee waqooyiga Mali. saraakiil ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxa lagu furay rasaas xooggan, waxaana ku dhintay hal sargaal halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerarka fulisay, balse MINUSMA ayaa la abuuray sanadkii 2013 si ay gacan uga geystaan sidii dalka looga difaaci lahaa kooxaha islaamiyiinta ah. qaramada midoobay ayaa waxa Mali uga dhintay in ka badan 170 tan iyo markii uu bilowday howlgalka nabad ilaalinta ee ka socda dalkaasi. ra'iisul wasaaraha Belgium Alexander De Croo ayaa soo dhaweeyay heshiiska EU ee xirmada 6aad ee cunaqabataynta ka dhanka ah Moscow, laakiin wuxuu ku baaqay in la hakiyo ilaa saameynta tillaabooyinka la ogaanayo. horaantii Talaadada madaxweynaha golaha midowga Yurub Charles Michel ayaa xaqiijiyay in wadamada xubnaha ka ah ururka mabda ahaan isku raaceen wareegii 6aad ee cunaqabataynta ka dhanka ah Ruushka, oo ay ku jirto qayb ka mid ah cunaqabataynta la saaro shidaalka Ruushka. cunaqabatayntan ayaa la soo rogay si jawaab celin u ah duulaanka ciidamada Moscow ay ku qaadeen dalka Ukraine. xogta guddiga maamulka Yurub ayaa muujinaysa in midowga Yurub uu wax ka badan 40% gaaskiisa ka helo Ruushka. sidoo kale kanjalarka Austria Karl Nehammer ayaa isna waxa uu sheegay inuu qabo ama uu aaminsan yahay inaan gaaska xirmada 7aad ee soo socota looga hadli doonin. daawadayaal warkii maanta kala socoteen NTN TV waa naga intaas. intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.